dhalinyarada gobolka Togdheer ayaa shir jiray ay maanta ku qabteen magaalada Burco waxay baaq nabadeed oo culus ay u direen beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ay ku dhaxmarayso deegaanka degmada Ceelafweyn gaar ahaan degmada Dararweyne waxaanay dhalinyaradani gobolka Togdheer ugu baaqeen beelahaasi in la joojiyo dagaalka lagana shaqeeyo nabadgelyada waana kuwan dhalinyaradaas oo ka hadlaya arrimahaasi waxaanu baaq nabadeed u diraynaa bulshada reer Somaliland la isku saliday ee dhibaatada ka dhaxdhacday ee isku laysay arrimaha qabaliga isku laynaysa ee arrimahoodu ka taagan yihiin deegaanka Ceelafweyn degmada Dararweyne intii dhimatay baan u ducaynaynaa tacsiib baan u diraynaa inta nool la ducaan u diraynaa ummadda reer Somaliland waxaan baaq nabadeed ugu diraynaa in ummadda masaakiinta ee reer miyiga ee islaynaysa nabad waarta laga dhaxdhaliyo waxaan baaq nabadeed aan u diraynaa gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelafweyn dadka walaalaha ah ee ehelka ah muddada dheer dagaalka uu ka dhaxeeyay waxaan leenahay war dagaal wiil kuma dhasho wiilun baa ku dhinta waxaanu leenahay colaada hadaan ahay dhalinyarada gobolka Togdheer hal lagu joojiyo si bilaa shuruud ah waa dad isdhalay waa dad isku jiila waa dad isku ehela waa inan iyo abtigii waa inan iyo aabihii waa ka dhimay oo kugu dhimay waxaan leenahay intii dhimatay way dhimatay Allah ha u naxariisto inta hadhay ha loo taliyo runtii waxaan fariin oo baaqa oo walaaltinimo ka codsanaynaa in dagaalka la joojiyo in dagaalka soo noqday iyo fitmada iyo dilka iyo dadka muslimiinta aan waxba galabsan maalin walba dhimanaya in la joojiyo dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho in arrinka la joojiyo runtii aad baan ugu celcelinaynaa ma aha xilligii la isku dililaa beelo laakiin waxaanu joognaa xilligii aan ka fakari lahayn inay nidaamka dunida ee horumaray ka tashanayaan ayahooda aynu ka wada tashan lahayn oo isku duuban waxaanu u baahanahay inaynu nabad wada jir iyo horumar aynu dhamaanteen badan uga soo wajeeysano waxaan leenahay walaalayaal islaam ahaan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba inoo ma wacna dagaalku dad islaam baynu nahay islaamka halka ka taagan yahay dhiigga islaamka waynu garanaynaa dad walaalo ehel baa tihiin oo dad isugu dhow baa tihiin idinka wax wada qabsan kara idinka meel wada gaari kara waxaan ugu baaqaynaa deegaamada ku xeeran iyo waxgaradka ahlu aqli in ay u soo gurmadaan oo la kala badbaadiyo dadka muslimiinta ah waxa ceeb nagu ah runtii in maanta la yiraahdo waxa islaynaya habar lamaan oo ah dad walaalaha wada dhashay magac wadaaga daaq wadaaga war waxaan leeyahay inuu u talino dadka nool wixii dhintay way dhinteen dadka nool aynu u talino waxaan leeyahay war dib intii hore aynu ugu fillayd walaalaha iyaga halka ku dagaalanaya waxaan leenahay waar talow coolka jooja gabigiisa aan carabay waxaan kaloo aanu leenahay bulshooyinta reer Somaliland meesha dhibaatadu ay ka dhacday ee mashaqadu ay dhowrka jeer soo noqnoqotay in xooga xukuumad iyo xisbiyo iyo shacab iyo cuqaal iyo waxgarad xooga la saaro war dagaalka hal la joojiyo dagaalku faa'iido ma laha waqtigan aynu joogno waqtiga aynu ka shaqayn lahayn developmentka iyo horumarka deegaankeena may ahayn xilli aynu isqabqabsano maynaan diyaar u ahayn inaynu dad inaga dhintaan oo isku layno wax macna daraa oo aan waliba saa u weynayn waxaan aad iyo u soo jeedinayaa waan bulshada waliba deegaanka xuqaashiisa iyo waxgaradkiisa inay ka guntadaan arinta foosha xun ee mar walba soo noqonaysa waxaan baaq culus halkan uga diraynaa dadka walaalaha ah ee isku laynaya degmada Dararweyne waanu ka xunnahay maanta uma baahnin in qof inaga dhinto maanta waxaanu higsanaynaa horumar baynu higsanaynaa waxaanu higsanaynaa ictiraaf baynu higsanaynaa leenahay intii dhimatay samir iimaan ilaahay ha inaga wada siiyo inta dhaawacantayna ilaahay caafimaad ha inoo siiyo walaalayaal waxaad ahaydin dadkii ilbaxa ahaa maanta walaalayaal waxaanu idinka doonayaa inaad qoriga dhigtaan qoriga walaalayaal waxaan u qaadanay inaan cadawga iyaga kula dagaalano anigu waxaan la hadlayaa ninka qoriga sita iyo ka lacagta ku bixinaya iyo ka cuntada soo karinaya iyo ka tollayda la daba taagan ninkaasi waxaan leeyahay rag iyo dumarba ku yahay ilaaha ka boqo ayaan leeyahay waxaad u diyaar garowdaa maalin aanay anfacaynin waxa weeyaan qalbigaaga iyo niyadaada iyo maalkaaga waxaad ku shaqaysatay mooy wax kale aanay ku anfacayn waxaan leeyahay nabadda qaata hubkana dhiga laba beelood ma tidina hal beel baa tihiin dadka idinka isugu xiga idinka isku degaana idinka isuran idinka ilaahay meesha idinku wada beeray wax kasta iska dishaan in kasta iska dishaan idinkunba wax iska dilay cid kale wax yeelmaysan idinkunba wax siyaala laftuu gooyaa dagaal noolaha uu cidhib tiraa wuxuu beeraa nacayb nabad guur buu dhalaa annagu nabad baan rabnaa naruuriya caafimaad adduun nabadaan jeclahay nagaanshaan doonaya nabigeenu wuxuu yidhi alqaatil wal maqtuul fi naar kii la dilayo iyo ka wax dilaaba labaduba naarta galaya walaal dad islaam aynu nahay dad Soomaaliyeed aynu nahay dad Soomaaliland daraynu nahay colaad aynu joojino nabad aynu ka shaqeyno xisbiyada qaranka xukuumadda golayaasha dhaqanka aqoon-yahanka indheergaradka iyo nabadoonka dalkaba waxaan ugu baaqaynaa inay gurmad af
gacan baa ka qayb qaataan joojinta dagaalada sokeeye ee ka dhacay deegaanka. waxaan leeyahay cidda hawsha gacanta ku haysa ee dawladda ee xukuumadda arrinka daacad ha ka noqoto oo sidii ugu habooneed arrinka ha u dhex gasho. walaalaabatiin meel la kala tagi maysaan waxaanu idinka codsanaynaa inay u dhaganugulaataan ummadda muslimiinta ee idan la hadlaysa. rasuulku sallallahu alayhi wasallam ila taqal muslimaan bisayfihima falqatilu wal maqtulu fi an-nar maadaama halka diinteenu dhigtay waxaanu ma leenahay war dagaalka hal la joojiyo baaqa laga soo jeedinayo dhalinyarada gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland oo dhan qaata dagaalkana joojiya wax weeyaan nabadana ku dadaala. waxaanu baaq nabadeed oo aad iyo aad u weyn u direynaa dhammaan bulshada degta gobolka Sanaag. waxaanu soo jeedinaynaa in wax laga qabto waxaanu cambaaraynaynaa cidda ka dambaysa ama cidda wada dagaalka hal la joojiyo. waa in la tagaa deegaanka dhacdadu ka jirto waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba aanu leenahay war walaalayaal xabadda la joojiyo war qolada reer Celafaan waxaan leeyahay ama taa muslimiinta qaata oo waxtasimu bihablillahi jamiican wala tafarraqu ama taa gaalada qaato markay qolayso soo qaado qolada kale diblomaasiyada noqoto ha u jawaabi weydo. wa Khalid Bakayle fogaana ragga xorta Star TV Burco.